بسم الله على بركة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. walaalahayga qaaliga ah dhammaan meel kastoo dunida daafeeda ka joogtaan waa idin salaamo waa walaashin filsankaahi kusoo dhawaada channelkayga Filsan Health and Beauty. maanta cunto healthy aan samaysaneynaa qado yar oo healthy ah insha Allah. hal qado baan noo hartay qadooyinka diet-ka, kadibna waxaan samaysaneynaa raba hadduu qadaro quraacdii, kadibna cuntooyinka miisaanka kordhinayay insha Allah. hadda cunto yar oo fudud ka samaystay oo maaragtay borotiinkeedana maasha Allah yahay, nafaqooyinkaada ay kaamil noqonayaan oo haddana yummy yummy inaba caadi ma ahan ku dhax insha Allah. waa hadda waxaan guda galaynaa raba hadduu qadaro sida aan sameyn lahayn. daawasho wacan. biyaha horta ka hadlaynaa. biyaha waa inaa cabto 3 litir oo biyo ah maalin kasto insha Allah taala biidhnillaahi baari. muhiimay ku tahay biyahaas, miisaanku ka caawinaya iyo caafimaadkaaga. quraacdii hadda samaysanay qadadii aan samaysanayna hadda marka insha Allah. waxaan jarjarayaa waa taqaanaa waa khajaar iyo barbarooni ansalaateer iyo xabad basbaas aan jarjaranaya iyo basal. intaan jarjaranaa marka waa wada sheekaysanayna insha Allah taala biidhnillaahi baari. codkayga doo idinku gaabtay iga raali ahaada. inta awoodeyda waxaan jeclaynaa cod dheer idinkugu sheego, idinkugu sharaxo. walaalahayga qaaliga waxaan idin sheegayaa horta qofka markuu rabo inuu miisaanka iska dhimo waa inuu gool leeyahay, waa inuu cunto kasta cunin, waa inuu cuntooyinkiisa qaas ka dhigtaa. qudaarta waa inuu badsadaa, special gabdhaha reer Muqdisho iyo xamar gabdhaha Soomaaliyeed aan dhihi lahay. sorry, meel kastay Soomaaliya ka joogaan, dunida daafaheeda ay ka joogaan Soomaaliya. maxay dhijir raas kambooni ilaa raas caseer. walaalahayga qaaliga ah waa awoodin intaan meel kastayna idin taalaa. aniga waxyaabo kale soo dhiga ma weynin, laakiin intaan waxaan idinkugu soo dhigaa waxay tahay inaad ka faa'iidaysatiin, waa haysatiin, waa awoodin. marka 7 cisho wixii la sameyn lahay waay. waqtiga marka igu cariiri ah ee la yaabinina waqtiga waa idinka soo daahaa. waxaan keenayana waa maaragtay aniga biisigayga badan yahay, abaayuna miisaanka ka ridaa, gurigiya caawin iga sugaayo oo ciyaalkii caawin iga sugayso hooyaan ahay. marka waxa waaye waqti mashquulku waa badan yahay, marka iga raali ahaada. gabdhahayga oo basbaas oo waxa soo dhan waa soo dhaqaya insha Allah qudaarti. hadda waxaan isku dardarsanaynaa iidaanki. marka walaalahayga qaaliga ah waxa idin sheegaya kan meel oo maalin dhaweyd waxaan kugu duubay aan la arkeynin. kii hor wuu fiicnaa, kii kasii horeeyay la arkeynin. marka waa idinka raali gelinaya. 2 qaadoo liin dhanaan hadda ku darsaday iyo cusbo yar. tan filfil waa filfisha waxay ku carfinaysaa cuntada, qudaartay ku carfinaysaa, cabiteedkan way ku furaysaa. waa qal asigana caafimaadka calooshana u fiican yahay. qal organic waay, miisaankana wuu ka dhimayaa. waa saliid saytuun ambaba mataqaanaa olive oil organic ah oo natural ah. waxa ugu fiican olive oil-sha midoo extra virgin ay ku qoran tahay aa ugu fiican. marka saas ogaada. qofka bini'aadmiga jirkiisa maalin kasta 2 qaado oo saliid u baahan yahay. marka qaado weyn waa iska ogaada hadaya. tan ku cabiraay ma jeedin qaado bare u dhigantaa. waa qaado af weyn la yiraa. waa jeclahay tan ku adeegtaa. marka qofka jirkiisa 2 qaado oo saliid ah maalintii inuu galo waa loo baahan yahay ka badan. too much lama rabo. macnaha hadda maanta kale cunto dufan la cuntid jirka u baahan ugu inta aan ahayn xeerta ka ahayn. xeerta ayda xeer dhasho. saas ogaada insha Allah. hilib ari ma cuni kartiin, hilib geel ma cuni kartiin, hilib lo'na ma cuni kartiin. chicken iyo kalluun iyo ukun marka diet galaysid miisaankiina iska dhinta aragtid insha Allah. comment ii soo dhiga halkan hoose, ana idinka caawinayo wax allaale maaragtay wixii u baahantiin gabdhaheena qaaliga ah meel kasto joogtiin. abaayaal hadda waxaan ku darsanaa waa qamadi aan soo kariyay, basal yaraan shax iyo saliid yaraan dabka ku siiyay, yaanyo yaraan ku daray, biyo cusbaan ku daray, waa ku soo gursiyo. waa sameyn kartiin taas insha Allah. waa qamadi qacdiisaan jeclaa markuu qajac dhahay qurux macaan. wallahi bilaa cuntadan qofkii dhadhamay bisa ka sheekay karo.
horta kaale gabdhihii sameeyeen ma ii soo dirtiin hoos iigu soo dhigtiin oo dhahdeen filsan waa sameeyna ma dhahdeen waa sameysana maxaa ka dareenteen yaa ma soo bixisiin saaxiibayaalo ما شاء الله أنا جروب أسلق يبسنا وحاسلق يبسنا ما ركتي cuntooyinka جروبكيga ما شاء الله biyo fara badan caba idin dhahdaayeen oo idin sheeg 3 litir oo biyo ina cabtid waa markaa artay ina miisaan dhintid aniga waxaan ku soo jirtay strawberry yar iyo qajaar iyo riixaan yar marka hadda saas ogaada insha Allah intaan ta ku qadaysid qadooyinka idin ka soo dhisay insha Allah 7 cisho haddana waxaan idin soo sheegaa haduu ilaahay 7 biri oo quraac ah kadibna haduu rabbi qadaro waxa sugeynaa waa miisaan kordhin qurxinti insha Allah soo yemi ma ahna da ujeedin cuntadan macaanta ما شاء الله تبارك الرحمن إلهي وإنت هيسن السي إنت هيستن وسائدي عافمات كامل عمر دير عبادة صوب الله نسي ودن كان نبط الله نوغا ديغو